Assalaamu calaykum kusoo dhawaada mar kale channelkayga Somfit waa abshir oo idin wado video kale maanta waxaan ka hadlaynaa maanta program cusub aan sameynayo oo hadda aan sameeyo oo 3 mar isbuuci aan sameeyo ayaa jiro wuxuu ka hadlayaa ama programkan uu ku saleysan yahay 3 shay oo loo yaqaano 3 mechanisms of muscle growth waa 3 farsamo ee muruqa lagu dhiso haddii aadan 3 mid kamid ah sameynoonin hadaba muruqaaga ma dhismaayo waayo science-ga ama research-ka ama cilmi baarista way cadeysay sida muruqa loo dhiso midka koowaad waxaa loo yaqaanaa tension workout oo ah inaad culays badan intaad qaadid ka sameysid tiro yar oo 6 ilaa 8 ah ka labaad waxaa loo yaqaanaa stress workout oo inaad culays yar qaadid oo tiro badan ka sameysid oo u dhaxayso 15 ilaa 20 reps ka sameysid kan ugu dambeeyna damage ayaa loo yaqaanaa oo aad controleysid weight-ka markii aad hoos u soo dhigaysid eccentric motion-ka aad tartiib u controleysid hadaba programkan aan hadda sameynayo 10 isbuuc waaye 3 mechanisms ayuu ku base gareysan yahay ama ku saleysan yahay waan idinla wadaagi doonaa ayagoo practical maanta waxaan ku bilaabeynaa tension workout anagoo culays qaadeyno aan guda galno asxaabta haddii ay tahay marka kuugu horeysa channelkan subscribe ku dhufo sidoo kale gambaleelka ama bell icon-ka daaro si aad u heshid video walbo aan soo galino waad mahadsan tahay okay exercise-ka ugu horeeya waxaan ku bilaabeynaa barbell back squat hadaba squat markii aad sameynaysid muhiimadda waxa weeyaan lugahaaga ha taagnaadaan yacni cirbahaaga iyo waxaaga dhaqdhaqaaqin sidoo kale markaad hoos u soo degaysidna marka ugu horeysa hips backward ama hipka ama dhexda gadaal u celi sidaad u jeedid sidaan sameynayo kale sidaas u sameey waxaan ka sameynaynaa squatka 3 wareeg ayaan ka sameynaynaa oo u dhaxaysa 6 ilaa 8 programka maanta wuxuu ku saleysan yahay tension workout oo culays inaan qaadno ah maanta tiro badan ma la sameynayo 6 ilaa 8 ayay u dhaxaynayaan tirooyinkeena exercise-ka labaad waxaan sameynaynaa dead lift oo asagana aan ka sameynayno 3 wareeg oo u dhaxayso 6 ilaa iyo 8 exercise-ka saddexaad waxaan sameynaynaa military press ama standing barbell shoulder press asagana waxaan ka sameyn doonaa culays ayaan gashanay 6 ilaa iyo 8 ayaan ka sameynaynaa maanta focuska ama hadafka waxaa waaye tension workout oo muruqa culays in la saaro ah exercise-ka afraad waxaan sameynaynaa barbell bench press asagana culays ayaan gashanaynaa oo waxaan kaliya ka sameyn doonaa 6 ilaa 8 muhiimadda goolka maanta waxay weeyaan tension workout ama tension workoutska oo loo yaqaano inaad culays badan qaado aad tiro yar ka sameysid okay exercise-ka shanaad waxaan sameynayaa weighted chin ups oo asagana aan ka sameyn doono 3 wareeg oo u dhaxayso 6 ilaa iyo 8 exercise-ka lixaad waxaan sameynayaa weighted dips oo asagana aan ka sameyn doono 3 wareeg oo 6 ilaa iyo 8 u dhaxayso dipska haddii aadan culays ku qaadi karin kaligood adigoo weight la'aana sameey intaad culayska ka awoodi karaysid last exercise ama exercise-ka ugu dambeeya waxaan sameynaynaa barbell curls oo asagana culays aan ku qaadeen oo aan ka sameyn doono 6 ilaa iyo 8 asxaabta angalkan kamerada oo shucaac yara galay waan idinka raali gelinayaa okay this is tension workout okay tension workout sidaan oo kale ayaa loo sameeyaa heavy lifting ka aragteen sida waaweyn aan sameynayay
saas ayuu muruq ku dhismaaya videoga labaadna waa idin tusi doonaa stress workout haddii ay tahay marka ugu horeysa channelka waxaad sugaysaa ku dhufo subscribe like the video wixii aad jeclaan lahayd inuu soo weydiiye waan inoo videoga kale waa mahadsantihiin bye bye